السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. bishii Febraayo 12keedii 2015 abaare 7:45 oo duhurnimo gaari gaashaman oo nuuciisu yahay Brinks 500 ayaa soo gaaray dhismaha caanka ah ee Capital One Plaza oo ku yaala wadada West Hammer Road magaalada Houston gobolka Texas ee Mareykanka. Jawiga magaalka waa xilli qabow, ilaaliyaasha qaarkooduna waxay ku jiraan xilligii bareegooda. Gaarigan miisaanka culus ayaa gabi ahaanba ahaa mid aysan xabada ka dusin. Muraayadaha daaqadihiisuna waa bulletproof, halka gaariga intiisa kale uu ka samaysan yahay bir dhumuc ahaan gaaraysa 7.5 ilaa 8 cm. wuxuu isku soo horbaakimay albaabka hore ee dhismahan oo ku aadan bangiga Capital One oo degnaa qaybta hoose. Gudihiisa waxaa saaran laba ka mid ah shaqaalaha shirkadda leh gaarigan ee Brinks oo ka howlgasha kala gooshinta lacagaha bangiyada. Alvin Kenny oo ahaa waardiyaha gaariga ayaa khibrad dheer u leh hawshan oo shirkaddan u shaqaynayay tan iyo 1994. sidoo kale darawalada gaariga Bertha Bone ayaa iyana muddo 10 sano ah darawal ka ahayd gawaarida nuucan ee gaashaaman. ka soo waardiyanimada gaariga, Mr. Alvin waxay shaqadiisu ahayd in uu gaarigan ka raro wax loo yaqaano callbacks oo ah baakado ama baco ay ku jiraan lacaga kaash cadaan ah kadibna uu geeyo bangiyada iyo ATM-yada laga soo dalbado. Wuxuu ku hubeysan yahay baaskoolad iyo jaakad yar oo bulletproof ah. Marka uu gaarigii soo istaagay, wuxuu darbadiiba aaday dhanka dambe ee gaariga. albaabkii dambe ayuu furay, wuxuuna ka soo dejiyay gaari gacan yar. Inta uu dhinacyadiisa iska eegay ayuu gaarigii ku riixay gudaha bangiga. Muddo 25 daqiiqo kadib wuxuu la soo baxay isagoo sida dhowr baco oo ay ka buuxaan lacaga dollar oo kaash ah. Markii uu soo ag istaagay qaybta dambe ee gaariga, misna uu rabo in lacagihii uu saaro gaarigan, ayaa hal goor waxa ku kadiyay 3 rag oo wajiyada u duuban. Mr. Alvin ayaa markiiba isku dayay in uu qeyl dhaansado wixii maqli karay oo agtiisa ka dhawaa, balse raggan oo aan bajixinjix ka muujin qayladiisa ayaa midkood inta uu qorigii uu ku hubeysnaa iska soo jaray madaxa kaga dhuftay xabad. Darawaladii Bertha oo xilligaas saarneyd kursiga darawalka inta ay soo degatay ayay bilowday in ay raggii xabad isweedaarsadaan, balse tir ahaan oo laga badnaa iyo raggan oo ku hubeysan qori ka weyn baaskoolada ay sidato ayaa keentay in ay dib ugu noqoto gaarigeeda bulletproof-ka ah oo ay nafteeda badbaadsato. Dhanka kale, raggii burcadan ee dhaca geysanayay ayaa durbadiiba ku booday bacihii ay ka buuxeen dollarka kaashka ahaa, iyagoo kula cararay gaarigooda baxsadka oo noociisu uu ahaa Ford F250. muddo gaaban gudahood waxaa goobtii dhaca soo gaaray booliiskii magaalada Houston iyo qaar ka mid ah kiil FBI oo ka mid ahaa kooxda Violent Crime Task Force. Dambi baarayaashii ayaa markiiba bilaabay ururinta cadeymihii dhaca, iyagoo mid u dul istaagaya dhammaan kaamirayaashii ku yeelay goobtii dhacan lagu geystay. Kadib isla markii ay heleen muuqaalka gaarigii burcadda ay ku baxsatay, waxay bilaabeen baadigoob degdeg ah. waxaana ugu dambeyn gaarigii cadda ee Ford F250 laga soo helay isagoo ku baakiman meel dhowr wado u jirta goobtii dhaca. waxaa iska cadeed in burcaddii ay halkan uga tageen kadib markii ay ku badashteen gaari kale, sida markhaatiyaal badan oo ku sugnaa goobtan ay u xaqiijin doonaan. waxaa gaarigan baxsadka darawalka ahaa nin dhalinyar madow ah oo isagu aan xirnayn maaskiga ay raggii kala wateen, balse cadeemahan iyo tilmaamaha aadka u yar ee ay heleen wax badan uma horseedin raggii booliiska. xitaa markii ay dambi baarayaashii isku dayeen in ay xogo dheeri helaan, misna ay ballan qaadeen in ay ku abaalmarin doonaan $10,000 qof kasta oo xog la wadaaga, ma jirin cid telefoonkoodii soo garaacday. sidaa fudud ayay gabi ahaanba isku qariyeen burcaddii, balse dhacan ma noqon doono midkii ugu dambeeyey ee ay geystaan kooxdan. muddadii xigtay waxaa magaalada Houston ay kooxdan ka geysan doonaan ilaa iyo 5 dhac oo kale oo ay ku beegsanayaan gawaaridan gaashaaman ee kala dhoofiya lacagaha 2 mar oo isku daygii dhacooda uu fashilmi doono oo ay kala geysteen bishii November 6, 2015 abaare 8 saac duhurnimo iyo bishii Maarso 18, 2016 abaare 6 saac iyo dhowr daqiiqo ee duhurnimo. inkastoo markii hore ay u muuqatay in raggan aan gacanta lagu soo dhigi karin, mar walbana ay 2 talaabo ka horeeyaan booliiskii iyo FBI-dii u gaaranayay, hal goor ayay wax waliba isbedeli doonaan. bishii Agoosto 29keedii 2016 daqiiqada uun ka hor abaare 12 qorax dhacii galabnimo, waardiyaha gaariga gaashaaman ee Brinks 25 jir lagu magacaabo David Guzman oo ku sugnaa banaanka hore ee bangiga Wells Fargo iskuna diyaarinaya in uu ATM-ka bangigan ku raseeyo lacaga kaash ah, ayaa hal goor lagu kadiyay rasaas tiro badan oo durbadiiba dhulka ku tuurtay, nafna aan ku sii reebin. waxaa goobtii uu ku dhacay waardiyahan isla markiiba soo dul istaagay gaari baluug ah, moodulkiisu yahay Toyota Sedan. nin xiran mask oo qaybta dambe ee gaariga ka soo booday ayaa isla markii si degdeg ah u dafay boorsadii lacagta kaashka ahayd ee uu siday David, oo tir ahaan ay ku jireen lacaga kor u dhaafaya $120,000. daqiiqado uun kadib, qoladii dambi baarista ee soo gaaray goobtii dhaca ayaa bilaabay ururinta cadeymihii ay gacanta ku dhigi kareen. goobtan way ka duwaneed goobihii hore, waxay ahayd meel baaxad weyn lehna kaamirooyin badan. inkastoo muuqaaladii ay ka heleen kaamirooyinkii ku hareereysnaa goobtan aysan si fiican u qaban taargada gaarigii uu ka soo degtay ninkii lacagtan qaaday, waxay markan gacanta ku
ku dhigeen caddeyn kale oo aysan filanaynin. Gaari caddaan ah modelkiisu yahay Toyota 4Runner ayaa abaaray 8:54 ee duhurkii baarkin ku galay qaybta gawaarida la dhigto ee hotelka Extended Stay American Hotel oo ku yaala kasoo horjeedka bangigan dhaxal laga geysan doono. Abaare 1 daqiiqo kadib markii ay xabadihii ku dhaceen waardiyihii David Guzman ayuu gaarigan si degdeg ah kaga baxay goobtii baarkinka, wadadana dhinac kale ka qaaday. Muddada 3 saacadood ee u dhaxaysay markii uu baarkinkan yimid ilaa laga geysto dhicii, cid gaariga ka soo degatay ama fuushay ma jirin. Sabab maxaa keeni kara in qof uu hotelkan baarkin ku galo muddo 3 saacadood ahna gaarigiisa uusan ka soo bixin ilaa isla daqiiqadii bangiga ku horyaala dhac lagu horgeystay? Mise sida la qiyaasayay dhacan ayuu ku lug lahaa qofkan? Taa waxaa kaga sii darneed, ma laga yaabaa in gaarigan uu ahaa meesha ay xabadihii lagu toogtay waardiyihii laga soo riday? Inkastoo middan ay albaabo hor leh u furtay dambibaarayaashii, haddana wax yar xitaa uma dhigmin xogta kale ee gacantooda soo gali doonta. Kadib dhicii waxaa maalmo gaaban gudahoodii kula soo xiriiray qof ku dhaaranaya in uu hayo macluumaad buuxda oo ku saabsan kooxda dhaca geysatay. Wuxuu ka codsaday oo keliya in aysan shaacinin cidda uu yahay oo ay qariyaan xogtiisa. Dambibaarayaashii oo rumaysan la fursadan gacanta uu ku jirta ayaa markiiba kula heshiiyey ninkan, bilaabayna in ay si degdeg ah xogtii uga soo aruuriyaan. Ninkan uu isku sheegaya in uu khilaaf shakhsi ah kala dhex maray isaga iyo madaxa howlgalladan ayaa daaha uga qaaday horjoogaha kooxda ee ka dambeeya dhacyadii isdabxigay ee magaalada Houston ka dhacay in uu yahay nin lagu magacaabo Red Batiste, ganacsade real estate-ka maalgashta oo ku nool xaafadda Acre Homes oo 12 kiiloomitir u jirta bartamaha magaalada Houston iyo daaraheeda dhaadheer. Markii ugu horeysay ay saraakiisha FBI-da bilaabeen dabagalka Redrick Batiste oo ku magac dheeraa Red, wuxuu ku noqday nin aad uga duwan burcadkii ay filanayeen. Wuxuu ahaa nin da ahaan jira 36 sano, dheer, caata ah, u muuqdayna in uu nolol iska caadi ah ku nool yahay. Sanadii 1979 ayuu ku dhashay magaaladan Houston, wuxuuna ahaa canuga kaliya ee ay lahaayeen labadiisa waalid, Roy Batiste iyo marwadiisa Joyce, oo iyagu noloshooda dhan u halgamayay sida ay canugoodan u siin lahaayeen nolosha ugu fiican, kagana fogeyn lahaayeen nolosha xun ee daraagiska iyo gaangistarada. Dhaqamada u muuqda FBI-da ee laga arki karay Red Batiste intooda badanna waxay muujinayeen in uu ahaa nin aad u fiican, si wanaagsan u labista, quruxda muuqiisa ilaaliya, aad u degan, ixtiraam badan, si joogtana waalidiintiisa u booqda gurigooda. Toddobaad kasta dhowr maalinna waqti la qaata hooyada canugtiisa yar iyo gabadha uu jecel wadaagga leeyahay ee isku diyaarinayo in uu reer la dhisto. Qof kasta oo ku hareeraysan wuxuu u arkayay in uu yahay nin fiican, caqli badan, dadaal iyo hami dheer. Balse saraakiishii dambi baaris ee FBI-da kuma qancin in uu Red Batiste yahay qofka uu dibadda sare kaga muuqdo. Waxayna bilaabeen in ay aad uga shakiyaan in Red uu hoosta ka wato nolol qarsoon oo waalidkii iyo saaxiibadiiba aysan ka warhaynin. Waxaana shakigan sii ziyaadiyey kadib markii ay dib u fureen faylashii hore ee noloshiisa. Red wuxuu lahaa nolol carqalado badan, waxayna soo bilowdeen sanadihii uu dugsiga sare ee waxbarasho dhiganayay. Abriil 1996 isagoo 17 jir ah ayaa loo xiray hub sharci darro ah oo uu sitay aawadii, kuna mutaystay muddo 1 sano oo xabsi ah. Sanad uun kadib dhacdadaas, mar kale waxaa 6 bilood oo xabsi ah uu ku mutaystay fardambiyad xadgudub kadib markii uu la dagaalay nin labadooda gaari ay isku dhaceen sida la sheegay. Dhowrkii sane ee xigayna xaaladiisu way kasii xumaanaysay sidii hore. Milkiyadda daraagis nooca marijuana, in uu ka baxsaday booliiska xili ay gacanta ku hayeen, xadgudub kale iyo wadista gaari isagoo sarqaansan. Balse waxaa muddadii ugu dheereed ee uu xabsi ku qaato ay iman doontaa sanadii 2000, xilliga oo uu 21 jir ahaa. Waxaa lagu helay dembi ka xuma kuwii hore kadib markii uu gabar saaxiibadiis ah u adeegsaday in ay soo iibsato hub, waraaqihii dowladana ku buuxiso sheeko been abuur ah oo ay ku sheegayso in ay nafteeda ku difaacayso hubkan. Ayuu hubkaasi ku iibiyey suuqa madow, waxaana lagu xukumay 6 sano oo xabsi ah. Kadib markii uu dib uga soo baxay xabsigiina, waxaa mar kale 2006 iyo 2009 laba jeer oo kala duwan loo xiray ku takrifal deyn iyo iibinta ama isticmaalka kaararka credit card-ka oo laga soo xaday dad kale. Almuhim, inta uu ka soo gaarayay da'da 30 wuxuu marba luqunta la galayay balaayo kasta tan ay u sii dhiibto. Saas oo ay tahayna, ma jirin qof yaqiinay Red oo u arkayay in uu yahay nin halis ah. Waxay u arkeen oo keliya nin fiican oo afgaaban, misna dhool cadeyn badan. Si daacada marka loo eegana, tan iyo markii ugu dambeysay ee xabsiga uu ka soo baxay 2009 wuxuu u muuqday nin gabi ahaanba isbedelay, kana tagay noloshii dambiyada. Wuxuu bilaabay in uu ka shaqeeyo shirkad nin dariskooda ah uu lahaa oo lagu magacaabayay Tommy Albert oo si weyn u aaminsanaa Red, isagoo xitaa wanaaga uu ka arkay aawadii ku hanweynaa in shirkadiisan uu ku wareejin doono Red maadaama canugiisii ka dhaxli lahaa uu geeriyooday. Noloshiisa oo dhan way u hagaagsaneed. Nin maandooriye ama sigaar caba ma ahayn, ma danayn jirin baararka khamriga lagu cabo. Wuxuu habeenadiisa inta badan ku qaadan jiray wax akhris, ciyaarida jeeska ama daawashada Netflix. Intaa waxa uu dheeraa in uu ahaa milkiilaha dhowr guri oo qiimo ahaan kor u dhaafaya $140,000, isagoo sidoo kale ku hami weynaa in uu guri kale oo weyn muddada soo aadan iibsan doono. Sida ay
u haysteen waalidiintiisa iyo dadka ku hareeraysan wuxuu aasaas fiican u dhisay hamiga weyn ee uu lahaa taa oo ahayd in uu noqdo ganacsi ka maalgashta real estate-ka riyo uu muddo dheer ka sheekayn jiray in uu ka dhabayn doono maalin uun almuhim haddii laisku soo kokoobo ninkan wuxuu u muuqday nin nolol dembiyeedkiisii gadaal kaga soo tegay balse weli dembi baarayaashu waxbaa uun gudahoodii ka diidayay in ay aaminaan waxayna 3 bishii Sebtembar 2016 gaarigii uu Red Batista lahaa ee Jeep Wrangler-ka ahaa ku talaaleen aalad raadraac ee GPS-ka oo ay kula soconayaan dhaqdhaqaaqiisa sidoo kale waxay guryaha ka soo horjeeda gurigii uu degnaa ku xireen kamera CCTV ah waxaana sidaa ku bilowday ugaarsiga ninkan lagu tilmaamay tuuga casriga ee ugu xariifsanaa Houston 4 maalmood kadib kooxdii dambi baariyaasha ayaa gacanta u soo galay cadeyn kale oo aad u muhiim ah qaar kamid ah saraakiishii booliiska ee magaalada Houston oo iyagu ka warhayay ugaarsiga FBI-du ay waday isna baaraya mid kamid ah goobaha baarkinada ugu waaweyn ee magaalada ay lahayd ayaa ugu dhex tagay gaari cadaan ah noociisu yahay Toyota 4Runner oo u dhigma midkii ay kamerada CCTV-ga soo qabatay isagoo ku jira 3 saacadood baarkinka hotelkii ka soo horjeeday dhacii bangiga Wells Fargo loogana shakisnaa in uu qayb ka ahaa raggii dhaca geystay isla markii ay baaritaan ku gaariganna waxa u soo baxday in gaarigan la soo xaday muddo dheerna la raadinayay waxay kaloo mid kamid ah albaabada dambe ee gaarigan ku arkeen dalool afkiisa la eg qori sniper ah iyo iskoobkiisa waxayna ula muuqatay in ay ahayd meesha ugu fiican ee qof sniper ah uu isku qarin karo misna isagoon laga warhelin uga dhex toogan karo qof kale durbadiiba waxay gaarigii ku rakibeen aaladii raadraaca ee GPS-ka iyagoo sidiisii isagoo u baakiman kaga soo tagay baarkinkii rajaynayana in qofkii waday uu u soo noqon doono mana dheereen xilliga ay fariintii GPS-ka u soo dhaxday bishii Sebtembar 14-keeda waxa gaarigii Toyota 4Runner-ka ahaa laga saaray baarkinkii uu ku jiray isagoo loo wareejiyay baarkin kale isla waqtigaas waxa gaarigii Red Batista ee Jeepta ahaa ay ka soo dhaqaaqday dhismihii uu degnaa isagoo si toos ah u tagay isla baarkinkii cusbaa ee lagu baakimay gaarigii Toyota 4Runner-ka ahaa tani ma ahayn mid iska nasiib ah kooxdii FBI-da ee ugaarsigan waday waxay si hubaal ah u aaminsanayeen in Red uu yahay ninkii ay rabeen balse dhibaatada hortaagan ayaa ahayd wali cadeyn dhab ah kuma haynin waa in ay cadeyn dhab ah u helaan in Red uu yahay fuliyaha dhaca in gaarigan uu yahay isla gaarigii ay ku raajoogeen qorshaha ugu fiican ee u soo baxayna wuxuu noqday in Red iyo kooxdiisa ay ku qabtaan iyagoo howsha gacanta kula jira dhaciina fulinaya mana dheereen xilligii ay taa dhici lahayd ku dhawaad 3 bilood waxay saacad kasta ku raajoogeen Red daqiiqad kastaana la socdeen dhaqdhaqaaq kasta uu sameeyo iyo goob kasta ee uu tago inkastoo maalmaha badinkooda uu rootiinkiisa caadiga ah u badnaa Red wuxuu marmar kulan la yeelan jiray 37 jir ay isku xaafad ahaayeen oo lagu magacaabay Nelson Polk Nelson si la mid ah Red wuxuu lahaa diiwaan dambi oo aad u dheer oo ay kamid ahaayeen daraagis iyo xadgudubyo hub lagu geystay wuxuu sidoo kale Red dhowr jeer la kulmay 46 jir lagu magacaabo Mark Hill oo ahaa Nelson Polk adeerkii oo isna ku noolaa xaafad u dhow xaafadda Acrohomes ee ay Red iyo Nelson degnaayeen sidoo kale Mark Hill isna wuxuu lahaa taariikh hore oo faldambiyadii ah oo isugu jiray xadgudubyo iyo milkiyada xaddi daraagis oo aan la ogoleyn balse si la mid ah Red Batista raggan noloshooda aad ayay isku bedeshay waxaana sanadihii dambe nolol qurux badan ay la qaadanayeen reerahooda iyo caruurtooda una muuqatay in dhammaan noloshii hore ay gadaal uga soo tageen haddii si kale loo eegana oo Red uu yahay horjoogaha lagu sheegay in uu yahay madaxa kooxdan dhaca geysata Nelson iyo Mark waxay ahaayeen ragga ugu habboon ee hawsha la fulin karay saadarteed qoladii dambi baariyaashu waqtiba iskama lumin waxay markiiba si sir ah gaarigii Mark Hill uu lahaa ay ku talaaleen aaladii raadraaca ee GPS-ka oo ay kula soconayeen dhaqdhaqaaqiisa maalmihii ugu horeeyayna waxay u muuqatay in raggan ay noloshooda caadiga ah isaga jiraan ilaa hal goor 22 November abaare 2 saac subaxnimadii hore uu raadaarkooda soo qabtay gaarigii Mark Hill oo ku sugnaa agaaraha bangiga Amity Bank oo dhowr iyo 10 mayl xaafadiisa u jirtay muddo 3 saacadood ah ayuu ku agmeereysanayay inta u dhaxaysay wadooyinkii ku hareereysnaa bangiga iyo baarkinkiisa waxaana isla waqtigii uu ka tagay goobta 30 daqiiqo uun kadib imaaday baarkinkii bangiga isla gaarigii Jeepta ahayd ee uu watay Red Batista asagoo halkaasi ku sugnaan doona ilaa iyo 5tii galabnimo muddo 6 saacadood oo kaamil ah subax maalintii xigtay isla waqtigii hore oo kale Mark Hill ayaa haddana yimid bangigii isla abaare saacadii hore oo kale haddana waxaa yimid Red oo isna halkaasi joogi doona muddo 7 saacadood oo kale dambi baariyaashii markii ay arkeen dhaqdhaqaaqa raggan waxay 100% hubeen in halkan ay ka fulin doonaan dhac kale waxayna markiiba bilaabeen diyaar garowgii ugu weynaa subaxa maalnimadii saddexaad Red Batista ayaa ku soo dheelmaday baarkinka Amity Bank 3 saac kadib abaare 5 saac barqadii waxaa bangigii soo gaaray mid kamid ah gawaaridii gaashaana ee ay lahayd shirkadda Loomis oo markiiba
inta uu baarkin galay waardiyihiisa bilaabay inuu boqolaalkii kun ee uu siday ku raseeyo ATM-yadii bangiga. Red wax dhaqdhaqaaq ah ma samaynin. Wuxuu u muuqday inuu si gaar ah u daawanayo waardiyihii. Waxaana 45 daqiiqo gudahood isla bangigii soo gaaray Mark Hill oo markan watay gaari kale oo uu lahaa Infiniti modelkiisu yahay QX56. Muddo gaaban kadibna waxaa meeshii ka dhaqaaqay gaarigii gaashaanaa oo howshiisii dhammaystay. daqiiqada kadibna waxay Red iyo Mark isku wada raaceen moolka lagu magacaabo Greens Point oo ka ag dhawaa bangigii, halkaas oo ay kula kulmi doonaan Nelson Polk. Muddo dheerna ay ku wada sheekaysan doonaan. Markii ay soo gabagabeeyeen sheekadooda, waxay mar kale ku soo laabteen Amage Bank iyagoo dhowr daqiiqo ku noqnoqday wadooyinkii kala duwanaa ee soo galayay bangiga. Waxayna u muuqatay in ay qorsheynayaan dad ugu habboon ay ku baxsan lahaayeen, balse si la yaab leh muddo kadib way kala tageen. Wuxuuna mid kastaaba qabtay jiho u gaar ah iyagoon waxba aan samaynin. Midan ayaa keentay in su'aalo hor leh ay isweydiiyaan dambibaarayaashii u gaaranayay raggan. Waxaan oo dhan maxay ka dhigneed? Maxayse raggan maleegayaan? Waxay u baahnaayeen in ay si degdeg ah jawaab ku helaan. Saa darteed maalnimadii November 29keedii waxay bilaabeen basaasida iyo dhegeysiga telefoonka gacanta ee uu lahaa Red Batista. Isla maalinkaana waxay xog ku heli doonaan Red iyo kooxdiisu in ay gabar macrifadooda ah u adeegsadeen in gaari noociisu yahay Jeep Cherokee ay uga soo ijaarto shirkadda gawaarida ijaarka Enterprise Rent a Car. Gaarigan ayaa si toos ah loogu soo xareyn doonaa garaajka guriga Red Batista. Macadeen waxa looga damacsan yahay weli, balse waxaa hubanti ahayd in qorshaha ay maleegayaan qayb ka yahay. Dhowr saacadood uun kadib Red Batista ayaa wuxuu la xiriiri doonaa shakhsi hor leh, nin aysan FBI-duba ka warhaynin, 29 jir, lagu magacaabo Benny Phillips oo isaguna degnaa xaafad aad ugu dhow xaafadii Red ee Acrohomes. Benny si la mid ah raggii kale isna wuxuu lahaa taariikh dambiyeed oo aad u dheer oo ugu weynaa geysashada dhac isagoo adeegsanaya hub wax dila. Muddada uu teleefanka kula hadlayay Redna ma ahayn nin hadal badan. Inta badan wuxuu hadallo gaagaaban kaga falcelinayay cabashooyinkii Red oo u muuqday inuu hawl gacanta kula jiro balse uu xalin la'yahay, kuna celcelinayo kelmado sida niyo way ii hagaagi la'adahay, inaan koobigareeyo oo dhan ayaa caqabad igu ah. Kadib Benny, Red wuxuu la xiriiray Mark Hill oo isagana maalintan ku qornaa wiideynta bangigii Amage Bank. Wuxuuna Red weydiiyey Hill halka uu joogo, bartii fiicneyd miyaad joogtaa mise apartmentiska, taas oo Mark uu uga jawaabay apartmentiska. Isla maalinkaasi dooradii kadib Red wuxuu mar kale la xiriiray Mark isagoo u sheegaya in ugu dambeyn uu xaliyay caqabadii. Wuxuuna muddo gaaban gudaheedii la soo baxay gaarigii cusba ee ay subaxan soo ijaarteen isagoo si toos ah u soo aaday bangigii Amage oo dhowr saacadood uu baarkinkiisii joogi doono. Dhanka iyo xafiiskii FBI-da, raggii dambibaarayaashu waxay dhan kasta u rogrogayaan codadkii ay ka duubeen wicitaanadii Red iyo kooxdiisa dhex maray, iyagoo isku dayaya in waxyaabo badan ay micno u yeelaan, erayo badanna fahmaan waxa ay raggan uga jeedaan. Sida marka uu Red weydiinayay Mark Hill bartii fiicneyd mise apartmentiska, waa halkee bartan fiican, apartmentiskana ma kuwa dariska la ah bangiga, maxaase xag yaala. Sidoo kale midda ugu sii muhiimsaneed oo ahayd wixii uu la xarbinayay Red xilliga uu gurigiisa joogay oo uu xalin weysanaa maxay ahaayeen. Wax waliba si lama filaan ah ayay isku furfuri doonaan. 2 maalin uun kadib December 1deedii waxay gaarigii cusbaa ee Jeepta ahaa dib ugu celiyeen shirkaddii ay ka soo ijaarteen markii hore. Midan oo shaki badan ku abuurtay raggii FBI-da ayaa keentay in subaxii dambe ee December 2deedii ay ku dheelmadaan shirkaddii iyagoo aanan xog la wadaaginna mid ka mid a raggooda uu ka soo ijaarto isla gaarigaasi. Kadib markii ay gaarigii gacanta ku dhigeen, waxay si toos ah u tageen goob u qaas ah oo ay ku bilaabeen in ay daba iyo dacal u baaran gaarigii. Dabcan gaariga intiisii badan wuxuu ahaa mid aan la taabanin, marka laga reebo in mid ka mid a labadii furo ee gaariga uu lahaa uusan shaqaynayn laguna bedelay mid koobi ah. Sidoo kale waxay kaloo ku arkeen aalad raadraac GPS oo lagu qariyay qaybta hoose ee gaariga. Markii ugu horeysay dambibaarayaashii waxa u yara cadaaday qorshihii uu Red dejinayay, wixii uu dhowr maalin ka hor oo dhan la xarbinayayna inta uu gurigiisii ku sugnaa in uu yahay gaarigan. Wixii uu koobigareynayay waxaa suuragal ah in uu ahaa koodka systemka gaariga ee uu bedelay si uusan furaha koobiga ah ee uu ku bedelay midkii saxnaa aanan gaariga systemkiisii looga arkin ama uusan usoo muuqan. GPS-ka uu ku xirtayna wuxuu ugu dan lahaa in uu gaarigan kula socdo meesha uu ku sugan yahay si maalinka uu u baahdo loo soo dhaco, furaha uu reebtayna ay ugu wataan. Marka ay intaas u yara cadaatay qoladii dambibaarista ayaa markiiba bilaabay dabinkooda in ay dhinaca kale ka maleegaan. Waxay meel kale oo qarsoon uga talaaleen GPS-kooda u gaarka ah. Sidoo kale waxay ku xireen aalad ay motoorka iyo systemka gaariga ku damin karaan haddii ay u baahdaan. Waxayna gaarigii ku baarkin gareeyeen mid ka mid ah hoteelada magaalada si ay uga dhigaan in qof safar ah uu gaarigiisa u ijaartay. Dabinkoodna wuxuu u shaqeeyey si aan caadi ahayn. Maalinkii xigay abaare 7 saac duhurnimo, Red Batista oo malaha dhankiisii ka adeegsanayo GPS-kii uu ku xirtay ayaa asagoo wata gaarigiisii lagu yiqiinay yimid hoteelkii uu ku baakinnaa gaarigan. Waxaa soo degtay nin kale oo Red gaariga la saarnaa. Si toos ah inta uu gaarigii cusba usoo ag istaagay ayuu asagoo isticmaalaya furihii ay la hareen gaarigii si tartiib ah ugala baxay baarkinkii, isagoo ugu dambeyn la tagay mid ka mid ah dhismaha apartmentyada caanka ah ee Bluebell oo si la mid ah uu ku baarkin garaysnaa gaarigii caddaa ee Toyota 4Runner-ka ahaa oo aan wada
wada ogeyn isna in la soo xaday 2 maalin kadib 5 December Red ayaa wuxuu gaarigii cusbaa geyn doonaa garaash lagu hagaajiyo gawaarida si uu muraayadaha gaarigan uga soo dhigo bensel mugdi ah wuxuuna habeenkii xigay ee Talaadada wargelin doonaa kooxdiisa in maalinka Arbacada ay tahay maalinkii ay fulin lahaayeen howlgalkoodii dhaca waxaa la gaaray subaxii Arbacada December 7 2016 Red ayaa si tafaftiran ula wadaagi doona kooxdiisa sida ay u fulin doonaan howlgalkooda wuxuu qorshuhu ahaa in laba ka mid ah kooxda ay adeegsan doonaan gaarigii cadda ee Toyota 4Runner-ka ahaa shaqadooduna ay tahay in bicihii lacagta ay gacanta ku dhigaan kadib marka uu Red Batista toogto waardiyihii siday Red isagoo adeegsanaya gaarigii cusbaa ee la soo dhacay ayuu go'aansaday inuu baarkin ku gali doono kasoo horjeedka bangiga misna uu isagu toogan doono ninka waardiyaha ah kooxda intooda kale waxa hooshoodu ay ahayd kormeeridda dhammaan wadooyinka soo gala bangiga la socoshada xilliga uu gaariga gaashaaman ee lacagta sida ku soo dhow yahay bangiga iyo booliiska ku sugan agaaraha goobtan sida guud ahaan ka muuqatana qorshahan ma ahayn oo kaliya mid hal goor la isticmaalo balse wuxuu jawaab cad u ahaa sida ay u dhaceen dhammaan dhacyadii kale ee kooxdan ay geysatay marka ay saacadu dul istaagtay 12 barqanimo mid ka mid ah raggii kormeerka ayaa la soo socodsiiyay Red in gaarigii gaashaana uu afka ku soo haayo xaruntii bangiga waxaan daqiiqad ka badnayn kadibna waxa bangigii soo hor istaagay gaarigii Loomis Red oo inta uu neef qaatay isdiyaariyay ayaa hal mar indhihiisa aamini waayay waxa hal goor dhisme aad uga dhow dhinaciisa ka soo baxay gaariga ciidamada gaarka u tababaran ee booliiska oo inta hal goor ku wada agdaatay gaarigii ay saarnaayeen kooxdiisa ee jiibta cad ahaa bilaabayna in ay daba dhigtaan raggiisa oo inta ay gaarigii ka wada degteen sii cararaya Red oo aamini la waxa dhacaya lagana yaabo in uu rajo dhigay ayaa inta gaarigiisii ka soo degtay bilaabay in uu xabad ku rido ciidamadii iswaadka ah oo iyagana inta ay xabad uga soo jawaabeen si naxariis daro ah uga toogan doona xabadka daqiiqado gudaheedna uu ku nafaayi doono waxaa sidoo kale markiiba gacanta lagu dhigay labadii nin ee ka baxsaday gaarigii cadda ee jiibta kuwa oo kala ahaa Nelson Polk iyo xubin kale oo cusub aan horey loo aqoon 29 jir lagu magacaabo Travis Duncan Bush nin si lamida saaxiibadiisa lahaa taariikh dheer oo dambiye ah waxaa raggan aan ka harin Mark Hill oo isagu ka mid ahaa raggii kormeerka oo gacanta lagu soo dhigi doono isagoo markaa jooga meel dhowr guri u jirta bangigii sidoo kale ragga la qabtay waxaa ka mid ahaa 40 jir ay macrifo fog ilaa yaraantii ahaayeen Red oo lagu magacaabo John Edward Scott midan ayaa amaka ku noqotay dhammaan reerihii kooxdan oo iyagu badinkood aan marnaba aaminin in wiilashooda iyo siyadoodaba ay yihiin arxanlaawayaasha ay FBI-du muddadan dheer ugaaranaysay inkastoo dambi baarayaashu ay juhdi aad u weyn geliyeen ugaarsigan waxaa nasiibkoodii ugu weynaa ahaa in ay heleen ninka farta ugu fiiqay raggan si daacada marka loo hadlana Red wuxuu ahaa nin si qiyaas la'aan maskax badanna ay ku jirto u qorsheynayay dhacyadii uu geysanayay waana hubaal ninkii xogtiisa banaanka dhigay la'aantii raggii FBI-du xitaa uma soo dhawaadeen iskaba daayay inay ka taqalusaan su'aasha ugu weyn ee ay jawaabta u heli waayeen ayaase ahayd maxaa ku qasbay Red in uu fal nuucan ah ku dhaqaaqo wuxuu u muuqday nin noloshiisu ay isugu toostay waxba aan ka maqneen shaqo iyo family leh si lamida kooxdiisa rag rabshad iyo nolol xunba gadaal kaga soo wada tagay dhammaan inta gacanta lagu haayo kooxdiisa hal qof oo kaliya ayaa ahaa mid shaqo la'aan ah intoodii kale waxay ku noolaayeen guryo ay qaarkooda leeyihiin shaqooyin aad u fiican ayaynu ka shaqayn jireen madamac xumi mise markii horeba sawirka uu dadka tusay ee ahaa in uu isbedelay ayaa been ahaa waxaan rabaa in aan ogaado ra'yigiina ku aadan arrintan maxay kula tahay igula wadaag jawaabtaada commentiga